hargal wanaagsan maxamed baasha qaliif xaaladda magaalada aad ay u wanaagsan tahay marka ammaanka waxbarashada iyo ganacsiga laga hadlayo magaalada Jowhar dadku waxay aad ugu murugaysan yihiin una hadalhayaan haweeney 9 sano jir ah oo kam ku yaala magaalada Jowhar oo kamid ah kaamamka Barakaay oo jilyaal lagu magacaabo lagu kufsaday dhacdadaasi dadku waxay ku abuurtay murugo badan siyaabo kala duwan ayay ummadda uga hadleen maanta ayaa waxaan booqday oo aan hadda kala hadlayaa kaamkii lagu kufsaday hooyadaasi xanuunkii baashow ay ugu haysay hooyadaasi ay ahayd in maamo 85 sano jirta maamo 85 sano jirta illa xoogo anoo ka walwalsan oo raba inaan ogaado xogteeda anoo raba xogteeda inaan ogaado waxaan ugu tagay in hooyo kale oo la caruur haysata oo isla 7 bari gudahooda lagu kufsaday isla kaamkaasi hooyadaasi waxay ii sheegtay inay haysatay la caruura loo galay qori lagu qabtay la aamusiyay kadibna cunug yar oo iyada dhashay ooyay ninkii xoogay wuxuu ku dhahay cunuga yar ee ooynaya naaska afka u gali hooyadii si aan loogu soo bixin hooyadii iyadoo naaska afka ugu haysta oo cunuga naaska siinaysa ayuu shaqadiisa qabsaday waa u dhamaystay kadibna waa u baxay sida ii sheegeen subaxii waa la waday xabsiga waxa la geeyay saldhigga islaantii rifeeta laga qoray isbitaalka la geeyay baaritaana lagu sameeyay waa la cadeeyay in la kufsaday qolada saldhigga waxay u sheegeen ninkii ma taqaanaan haddaadan aqoon iska baxa saasay ugu dhaheen ila daawada qaar ka mid ah dadka ku nool kaamkan jilyaale oo ka hadlaya dhibaatada loo geystay hooyada hadda waxaa noo soo kordhay inaan hooyaad qabin biriga la joogo habeenaa loo galay gabar 5 caruur oo reedaha ka jirta siyeer kula jirta loo galay qoriga dhunta ka saaray mihiisa isku faraxumeeyay haday ka soo kacday waa ay timid waxay diray damcaanina ay soo galay waana faraxumeeyay waana baxay gabartaydi inaan biyo u kuleey aan u qabeey waxaan geeyay saldhigga hadaan tagay waxa la yiri warqadaan qaad isbitaalka anta la soo saantagay waxa la yiri gobartaan waa u soo dhaqdhaqday wax laga qaba kara male gabar ma ahan waa dhashooyaa la yiri waa u soo dhaqday wax laga gaaraa natiijo ma laha iska wada gabartaada bil oo daawo ah lagu sii haayay isbitaalka oo waxa tag muxuu ahaay kulmis waxaan gabartaan ila u dhaara kartay in xal la farxumeey wax laga qabaha kala ama jiraan ma wax laga qabahay male gabartaan waa u soo dhaqdhaqday maxaa u soo dhaqday soo wasaqda la maxaa u keeni weysay waxaan xal 7 saac gabar loo galay ma wasaqdeeda ilaa halahan oo nijaas ma ku hayay waa u soo qabaastay gabartayga waana taneen waa ka soo tagay saldhigaan nimad wuxuu warqad ma haan dhigta hadii ninkii soo heshiina ima haysin waa ka nimid tii ana ko la xun oo dhamaantayna wada jiragnahay gabar 6 cunug wiil aadan ee dhaxda ka jiifto ee siyeerka ilmaheeda hilibka ay cunugeeda yaray gabaray eeda in xabadkeeda ku soo oysiyo warwariya aamasi meesha korsaar gabarta naaska afka u guli ilaa gabarta oo haysas ka bageeska tagay horta intaas waa soo marnay waa adduunyo fool xumadeeda waxaana nahay dad la yaqaan maan dad qarsoon manihi waxaan noogu soo xigsatay ee waalidkayni oo 9 sano jiro oo sariir jiifo in la xumbaaro oo duurka la geesto lagu soo bago aan ka soo qaadano shalay ragayna iyo gabdhahayna niman ooynin oo islaan shalay ma jirin ilaa saacadan hadhow waxay u dabahay gawaala way ninka xaqiiqo lama haya u dhaarahaya saan yeelay saan u dabahay waxaan rabnaa maamulka madaxweynaha uu weyn yahay maxaa Hirshabeellaanahay oo gobolka Shabeellaha dhexe magaalada Jowhar aan joognay waxaan rabnaa in wax noolaga qabto hoyga noolaga bedelo haday islaamnimo jirto oo diinta la daba kacaayo xaqiiqada laga warramaayo daacad loo warramaayo musuqmaasuq la bixiyaayo dar ala loo warramaayo waxaan rabnaa in noolaga qabto hoyga awada shalay biriga gabdhaha qori waa diideen waxay dhaheen waxaan shidana anka dhuxul ma shidano gaari ma gidisano geedihuudkaas ceerinka ana soo gurnaa in jirsinaan shidanaay geedihuudki gabartii waxay tahay hadaan qori jiri hoy waa la soo dhan bala inteen ka jiriha hadaan qori aadna waa loo soo xooga inteen ka bixinay xalay lama nus nimanka inaa un ko saas garku waysna xal wada seexdo oo qof la arkay hadaad qaylisid saan kuugu imaha ninka inuu nin kala banaanka joogo inuu gudaha ku jiro ma ogni ninka hadaa rooro aniga waxaan ku qasbanay igaarkayga macalinka waxaan ku qasbanay hadii guriga la soo galo inuu ii iimaan sababtoo qoriga dhinac u ma yaal aniga hadii la soo galo
haddaan aniga qayliyon ooyana isaga ma maqnaa karo haddau soo baxan qorigaasaa lagu dhifahaa ma soo gali karo waxaan u baahannahay maamulka inuu garab naga qabto midka oo ugu horraysa inta islaan ee waxaan ka codsanaynaa oo diinta rabbigay saanta ku leh inay hoygana laga bedelo mugabriya ayagoo maalinta soo shaqaysaa dhagax faago maalintii dhagax faago oo yaaban aadana adeeg inta lagu galo aadan la farxumeeya ninka ku bixlaan oo ka cabsana ninkaas waa nin qorle ama ku dilaabo hadda ninka qorle nin shab kuma aado mugay waxaan u soo meesha maamulka u maanay waxa uu joogna maamulku waaye dad iska masaakiinanaay dad diinta Ilaahay ku taaganaanaay mugay in habeenkii naagii la farxumeeyeen waa mid aad u xun waxa lagu sii qatimay in haddana 90 jir ninkii mugay habar 90 jir xoogay habeentan wuxuu sameeyay rabaa ka badan amba waxba u dilaa amba haddana wax kale u farsameeyaa waxaan oo lagu tiigsanayo waa hoy la'aan oo guriga hadii la soo feedi tago oo irid leeyahay waa lagu soo kacaa meeshaan good leeyahay oo la soo faaga oo la soo feeday gabar masaakiin oo iska waxaan ku ilmoolay oo ninkeedii as shaqo jiro loo galay hadii loo galay waa qayli waaysi qoryaa lagu qabtay waa qayli waaysi danahiisu ka gaare markaas ay wixii dirs ay wacatay habeen horaata waxa xalimaan habeen horaata waxaan noogu soo xigsatay habar 80 jir hargal wanaagsan maasha hargal wanaagsan